السلام عليكم كلنتو معنا wanaagsan meel kasto caalamka joogtaan ku soo dhawaada mowduucan kooban waxaan ka hadlaynaa xaalad caafimaad oo dadka qaarkood inta badan ay ka warwaraan markaan xalkoodu oo aad markaa u adkaado inay iska daweeyaan waa xaalad loo yaqaan qumanka ama xoqadaha qofka xanuuna xaaladan inta badan waxa keena virus ama bacteria taasoo yeeshay waxaan muddo sanadada dambe inay ku soo badanayso dhalinta Soomaaliyeed hadaba xal kamid ah xalalka ama siyaabaha loo daweeyo ayaa in qofku ku luqdo biyo markaa milix ama cusbo lagu daro waxaana la soo jeedinayaa inay qofku markaa uu isticmaalo ugu yaraan 2 ilaa 3 jeer maalintii waxaana si gaar ah loo tilmaamaa subaxii iyo habeenkii ka hor intaan qofku aanu seexan tan waxay yareynaysaa inay nadiifiso dhuunta sidoo kale waxay ka hortagaysaa taranka bakteeriyada ama sidoo kale viruska ee markaa dhuunta keenaya bararka iyo xanuunka waxaana qofka caawisaa inuu liqo biyaha iyo sidoo kale cuntada oo ku adag qofka markaa inuu sameeyo xaaladan marka uu leeyahay qumanka ama sidoo kale xoqada bararka taasina waxa ay keentaa inay hoos u dhigto bararka sidoo kale qofka markaa uu dhuunta ka dareemayo sida markaa magaca ka akhrisan loo yaqaano tonsillitis oo inflammation ama barar ku dhaca xoqadaha ama qumanka hadaba talooyinka caafimaad waxay sheegayaan in qofku dadaalo isticmaalka biyaha milixda ama cusbada lagu daray subax hore waa kuwa qarash yar markaana waxa loo soo jeedin qofku inuu isticmaalo siyaabaha soo socda ku dar qaado barkeed oo milixa biyo markaa diiran oo u dhigma 250 ml isla markaana waxa qofka loo soo jeedinayaa inuu walaaqo tan inta cusbada ama milixdu biyaha ku milmayaan fadlan haylaw sidoo kale mowduuc la xiriira qodobkan ka hadlayno ka daawo YouTube ka saaran barnaamijka sidoo kale YouTube noo saarto subscribe sidoo kale haylaw inaad soo follow garayso